السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داوديال ومركلة iyo muuqaaladii halkan aan idiin soo dhigi jiray Hufan Media Channel sida aynu la soconno waxa magaalada Laascaanood maalintii labaad galay dagaal markaasi ay isugu hor imaanayaan ciidamo markaasi gadoosan oo ka tirsan beesha dhulbaante ee degta gobolka Laascaanood iyo ciidamada Somaliland waxaana halkaasi ka dhashay khasaare aad u badan oo dhimasho iyo dhaawacba leh waxa wararku ay sheegayaan in ilaa haatan dagaalku uu socdo haba yaraatee wax markaasi waanwaanana aysan jirin balse dowladda federaalka kumeel gaadhka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagu khudbad kulul markaasi ka jeediyey saaka arrimaha markaasi Laascaanood wuxuuna ugu baaqay in dagaalka la joojiyo isla mar ahaantaana xal markaasi waara laga gaadho oo dhanka siyaasadda waxaana uu markaasi tilmaamay in rabitaanka shacabka beesha dhulbaante ee degta Laascaanood markaasi loo hoggaansamo isagoo sheegay dhanka kale in garowana nabadii ay ku soo caanamaashay iyaduna ay ka shaqayso oo wax faragelina haba yaraatee aysan ku samaynin dagaalkaasi ka socda Laascaanood wararka ayaa waxay sheegayaan in dhimashadu ay tahay mid markaasi aad u badan dhaawacyadana markaasi loo soo daabulayo sida markaasi la sheegay magaalada Muqdisho waqtiyadan hadda aan idinla hadlayo sida ugu macquulsan arrimahaas iyo kuwo kale ayaan jecelahay markaasi inaan ka dhageysano madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu saaka markaasi ka hadlay dagaalka ka socda Laascaanood inaan xabadka isa saarnay inaan hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino hala joojiyo maamulka cidda sheeganaysa cidda odayaasha dhaqanka ah culamaa u diinka mas-uuliyiinta siyaasiyiinta qof walba doorkeeda nabadeed ha qaadato colaada Laascaano siima socon karto lamana aqbali karo hala joojiyo miiska wadahadalka la isugu yimaado dowladda federaalka waxay diyaar u tahay inay fududayso ka qayb gasho kaalmayso haddii toos dadka hadda ay colaadu dhex martay u wada fariistaan arrinta waxaa ka socda Laascaano waa aragti siyaasadeedna qoran kuma xalisanto xalkeeda qoray kuma yimaado kan raba iyo kan diidanbo xalkeeda qoran kuma keeni karaan hala isu yimaado hala wada fariisto mar walba horaan uga shaban mushkiladda ka jirta Sool iyo Sanaag waxay ku dhex jirtaa xayndaabka jirinta aan jirinayna arrinta midnimadana anagu go'aanay naga tahay xoog inaan ku raadino ma doonayno nabadaan rabnaa inaan ku raadino dadka rabitaankiisana hala dhowran leenahay meeshaasi colaadaasi colaad dadka qabata maaha dadka Soomaaliyeed ma qabato dadka deegaanka guud ahaanna ma qabato hala joojiyaan ku baaqaynaa mar kale culamaa u diinka iyo odayaasha dhaqankane ayagaa deegaanadaasoo dhanba nabadeeda weligood ka talin jiray nabadda ha ka taliyaan inta qoryaha dadka haysta amarka kule ama kule maxaan ku raadaay raadka kulane hala hadlaano ha joojiyaan wiilasha qoryaha laga qaado hala damiyo colaadda intaas Soomaaliya guud ahaan meel kasta walaalayaal waxaan leenahay colaadi ka jirta hala joojiyo xumaanta hala joojiyo nabadda lagu baaqo lama aqbali karo dhiig kale oo Soomaaliyeed oo daata wax la aqbali kara ma meel kasta ha joogo sabab kasta ha loo soo waxay hadiina markaas aanan lagu difaacaynin diinta iyo dalka iyo dawladnimada laakiin reer hebel iyo deegaan hebel iyo koox hebel sidee warkeyga u diidi kartaa iyo koox hebel warkeeda ma doonayno muxuu ahaay xalku ma noqdo hal laga yimaado leena walaalayaal meeshaas waxa kale oo ayada halka rabaa inaan baaq uga jeediyo odayaasha reer Puntland iyo waxgaradka iyo mas'uuliyiinta iyo maamulka dawladda meesha ka jirtaba ayagana waxa uu baaqaynaa nabad walaalayaal warku balaayadu marka ay bilaabanaysa meel khafiif oo sahsaalan ay ka bilaabata meel fog ay ka bilaabata dalkaas iyo dawladdaas iyo deegaankaas reer Puntland nabad ay weligood haysan jireen nabadii inay haystaan la jecelnahay ayaguna waxaan ugu baaqaynaa in arrinta wada hadal lagu dhameeyo odayaasha dhaqanka ha qaataano kaalinta ay leeyihiin oo kaalinta nabadeed haddana ay qaateen waan ku bogaadinayaa inta odayaasha istaagay ee u istaagay arrintaas in nabad lagu soo xalliyo arrinta nabad ha lagu xalliyo dowladda federaalka Soomaaliya sidaan hore u sheegay wax kasta oo nabadaas ka qayb qaadanaya laakiin ma saacideyno ma taageereyno raalli kama ahin in mushkiladaha na dhex yaala in qoryo aan isu qaadino ku xallino kuma xalli karno
nooguma xalismayaan barraan heshiinaynaa ilaa meelan kala aadayna male xabaaraha korkooda yaanan ku heshiinin nabadda korkeeda aan ku heshiino deegaanada dhan intaasaan ugu baaqaya meel kasta oo khilaaf siyaasadeed ka jirana wada hadalaan ugu baaqaya waxaan hadda isku haysanaa isma necbin waa siyaasadana daawadeeda iyo xalkeeda dariiqa kaliya oo ku yimaado waa dariiqa dimuqraadiga ah oo in la wada hadlo ah ha la wada hadlo annagoo dhaqankeena suuban ilaalinayna diinteenna ilaalinayna dadkeennana u turayna aad iyo aadaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu